shalay galabkii goor casarkii ah waxaa garoonka Stadium Yariso ee Muqdisho ka qabsoontay ciyaar la wada sugayay ciyaar derbi ah ciyaar ay dheelayaan Mudug Koonfur iyo Waqooyi ciyaar ku tirsan semifinalka tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ciyaartaas oo dhex mareysay kooxda murqiyaweynta shacbiyada badan haysata ee guuleystaha koobaad ee koobkan iyo kooxda mintidka ee markii ugu horeysay raadinaysay bilada ama tagida kama dambaysta ciyaartan sanadkan ciyaartu waxay u dhaxaysay laba kooxood oo daris ah xifaaltamo kalena awood iyo sumcad badan xagga ciyaaraha waa Puntland iyo Galmudug. Puntland waxa ay garoonka timid iyadoo ku faanaysa taariikh hore isla weyni ka muuqato haysata iskoorka daawashada ugu badan ee baraha bulshada iyo ciyaaraha. Galmudugna waxay iskeentay iyadoo dagaal iyo xirfad diyaar u ah muujinaysana xirfad muujin labada dhinacba ay in badan ka sinaayeen. bilowgii daqiiqadii saddexaad Galmudug waxa ay la timid goolkii hoggaanka kadib markii ciyaaryahanka nambarka 19 oo galabtan ahaa hogaamiyaha xulkan garoonka ku jiray ee Galmudug uu shabaqa Puntland soo taabtay. Sakhraawi wiilkii qandala wiilkii ka yimid dhulka caanka ku ah Maydiga iyo Fooxa laacibkii masaafada u jaray inuu helo maamul uu matalo ayaa jooga ka riday xulkii hooyada federaalka. ciyaarta Galmudugna waxa ay ku qabatay hal gool iyo eber daqiiqadii lixaadse Puntland oo firxad ah ayaa goolkii bareejada la timid taas oo yadadiilo cusub abuurtay. qaybtii hore ayaa hal iyo hal lagu kala maray oo lagu kala nastay weerar iyo weerar celis ayaa lagu nastay balse markii la isku soo noqday ayay wax kasta isbedeleen. ciyaartuna waxay noqotay mid dhinac qura ka socota Galmudug oo weerar ah iyo Puntland oo difaaca una muuqata inay jeclaan lahayd barbaraha oo la isla gaaro 90 daqiiqo kadibna la aado rigoore ama gool kulaad. rubuc saac kadib mar kale Sakhraawi ayaa dhaliyay goolkii quusgooyay Puntland waxa uu ka dhaliyay gool dhaafay. Sakhraawi oo ay ka muuqato caro ayaa ciyaartoyda Puntland dhex jibaaxay waxaana uu dhaliyay goolkii tigidhka u jaray saaxiibadiisii hore ee dib ugu celiyay caasimadda Puntland ee Garowe. shalay galab waxay ahayd maalintii Sakhraawi maalintii loo fagaareeyay wiilkii qandala maalin uu xirfadiisa soo bandhigay maalin aysan ilaawi doonin ciyaartoyda Puntland kuwa xulka soo xula ilaa heer wasaaradeed. Sakhraawi waxa uu garoonka ka sameeyay wax kasta oo uu awooday oo macquul ah waxaana uu dhaliyay goolasha ugu badan ee tartankan. dabcan sida muuqata waxa uu noqon doonaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee koobkan. qofka aan ka hadlaynaa waa Maxamed Maxamuud Axmed oo ku magac dheer Sakhraawi waa kabtanka hogaaminaya kooxda kubadda cagta dowlad goboleedka Galmudug waxa uu ku dhashay deegaanka Unuun ee degmada Qandale ee gobolka Bari Puntland sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin iyo xubno ka tirsan qoyskiisa. Sakhraawi waxa uu ahaa ciyaaryahan caan ah marka la joogo garoomada yaryar ee Boosaaso. kooxaha ciyaaraha ee gudaha si weyn ayay isku garanayaan. ciyaaryahankan waxa uu bilowgii xirfadiisa go'aansaday inuu u safto xulka Puntland waxa uu gudbiyay dalab isqabad ayaa ka dhashay dalabkiisa waxaana uu gudbiyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland. qaar ka mid ah xubnaha ku matala golaha wakiilada Puntland ayuu arrintaas ugu tagay. xubnuhuna waxay u sii tageen wasaaradda madaxtooyada iyo xiriirka kubadda cagta ee Puntland ayaa la wargeliyay laakiin dhammaan dalabaadyadaas way guul daraysteen. Maxamedna nasiib uma helin inuu ka mid noqdo xulka kubadda cagta ee koobkan ay u xushay hooyada federaalku sida aan ku ogaanay macluumaad ka dahsoon. Maxamed waxa uu kadib go'aansaday inuu ciyaaraha gobolka Banaadir ka qayb galo wuxuu noqday ama hantay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee koobka ee degmooyinka gobolka Banaadir. mar kale ayuu u gudbiyay dalabkiisa xagga Puntland mar labaad ayaa la diiday nasiib darro iyadoo xilliga loo eegay in gobolka uu ka soo jeedo ee bari saami qaybsiga ciyaaryahanada xubnihii ay lahaayeen la qaybsaday. xildhibaano iyo shakhsiyaad kala duwan ayuu la xiriiray si loogu daro xulka haddana laakiin dhanka wasaaradda iyo hoggaanka ayaa diiday dalabkaas mar labaad. markaas kadib
waxa uu go'aansaday inuu ku biiro xulka kubadda cagta ee Galmudug. xulkan ayaa niyadsami ku soo dhaweeyay oo dalabkiisa aqbalay. ciyaaryahankan fudud lugtana fudud shalay galab ayuu u horseeday guul ay ku tagtay finaalka ama kama dambaysta ciyaaraha maamul goboleedyada Galmudug. sheekada xiisaha leh waa in maxamuud axmed uu reebay xulkii Puntland ee loo diiday inuu u safto isagoo ka dhaliyay labadii gool ee looga badiyay, kuwaas oo gabi ahaan hooyada federaalka u diray inay dib ugu laabtaan Garowe laguna soo dhaweeyo caasimadda federaalka. kasokow qadarta eebbe ee qoran oo aan cidna baajin karin, haddana madaxda ugu sarreysa Puntland waxaa la gudboon inay la xisaabtamaan wasaaradda iyo xiriirka kubadda cagta Puntland oo dhammaantood sifo aan sax ahayn u maareeyay xuludda ciyaaryahanada sanadkan la safay, sida ay ku doodayaan dadka sida dhow la socday hanaanka xulidan oo lagu sifeeyay inuu ahaa mid jeclaysi iyo kala soo jiidasho hoose lagu soo xulay. sidaasoo kale liilidda dhalinyarada soo kacaysa ee hanka iyo mustaqbalka wanaagsan kale dhammaan xirfadaha ama fursadaha yaalla waa in la booriyaa loona eegin dhammaan xayndaabka qabyaaladeed iyo wax kasta oo dib u dhigi kara dhalinyarada. 22 sano kadib Puntlandna muuqaalka uu ka bixiyay maxamuud axmed waxa uu muujinayaa inuu yahay mid ku salaysan hanaanka qabiilaysiga iyo saami qaybsiga gobolada oo ah boog weyn oo Soomaali oo dhan ku suntan.